Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Caruurey, sheeko cusub ayaan baranaynaa maanta. Sheekadan waxaa lagu magacaabaa dhilmaanyada iyo geelka. Sidan ayna ku bilaabanaysaa. Maalin maalmaha ka mid ah ayaa meel bannaan ayaa waxaa joogay geel. Geelkaasoo iska taagnaa geed weyn hoostiisa ayaa waxaa turtiisa fuushay dhilmaanyo ama kaneeco yar. Kaneecada ayaa rabtay inay wax yar ku nasato geelka dushiisa, ayadoo cod yar oo aan la maqli karinna guux ka samaynaysay. Markay wax yar nasatay ayaa geelkii waxay ku tiri, iga raali ahow, maadaama tuurtaada aan ku dul fadhiyey oo aan ku nastay. Waxay kaloo u sii raacisay, hadda ayaad nafisi doontaa oo culayskayga kaa degi doonaa. Geelkii ayaa ugu jawaabay, warba ma u haynin inaad igu dul fadhisay. Sida runta ah ma kala jecli haddaad dusheeda maanta oo dhan ku fadhisid iyo haddaad dooshidba. Caruurey, moraalka sheekadan ku jirta ayaa waxay tahay in dadka mararka qaar ay isku haystaan inay dadka kale ka sareeyaan ama ka muhiimsan yihiin, oo ayaga nafsadooda ay la weyn tahay oo iska weynaysiiyaan ummadda kale. Laakiin dadka kale ayaan warba u haynin isla weynida qofkaas asagoo isla qabo, ama aan kala jeclayn isla weynidaas. Marka tan waxay tilmaamaysaa in qofka uu muujiyo tawaaduc ama isla weyni la'aan, oo aadan dadka kale iska weynaynin, adigana aadan muhiim isla noqonin, naftaada aysan kula noqonin inaad dadka kale ka muhiimsan tahay, oo aad dadka ugu faanin inaad ugu caqli badan tahay, inaad ka cilmi badan tahay, inaad ka hawdansan tahay, inaad dhan walba kaga fiican tahay. Sababtoo ah waxaa laga yaabaa in waxaas adiga kula weyn ay dadka kale aan warba u haynin ama qiimo weyn aysan agtooda ka lahayn, oo adiga isla weynidaas ay ku dilayso ama ku murjinayso oo kaliya. Caruurey, sheekadan halkan ay noogu eg tahay. Ilaa sheekada dambe aan ku kulmi doono, waxaa idinkaga tegayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.